بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaad kusoo dhawaateen channelkeena dacwa online sidoo kale waxaad kusoo dhawaateen muuqaal cusub oon rajeynayno insha allahu tacaala inuu taxana noqon doono waxa aan rabnaa inaan ka dhigno 3 video oo daba socda waxaana sidoo kale maanta marti nagu jooga Cabdiraxmaan Yuunus isagana noo qada dhigi doona qaabka jisda uu socdo doonto waxaan laga sheekeyn doonaa ugu horeynta acraadda iyo asbaabta iyo cilaajka qaswatul qalb iyo in yaro hordhaco ka horeysa أحمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على من تدينها كفار مشاركة الدعوة أولا كنتي وأجراتنا كنتي كمية شنغضة كتير دعوة في اليوم فأدبر مدوان كلي ولكن الرحمن الماسيري كنت صار فكر كراهة شمكة رحمن بارك الله فيك كل ما تفهم هذا الدور سورة كالشيء أعراض قسوة القلب ما شاء الله وحنا هذا الدور ثاني من أعراض قسوة القلب يروحون رئيس الدمير كل قسوة القلب وحوي حمل رنتي قفك كدع حمل قفك كدع وحوق السلام الله حوي حمل حسية ويحرمون معنويا كافي حسي قاور سكولا قرنية وكل بدل كدعة ما في سكالة بيرن سقفها كوا معنوي يروح كدعة عن قيبتها أنا لا أركين غير مرئية بدي هذا وحالة الصالحة هذا سوق أنا غير مرئية كنا غير مرئية قف كدعة وحكمنا الشركية والشركية وين صدقنا نفاقة يوم وحكي قسوة القلب ما شاء الله ما أنت وحنا يكسن دون إن شاء الله قسوة القلب قسوة القلب وحاي كمية هاي محيابه نقول امتحاني ومدينة وهرية هذا أنا ورمي مدينة وهرية وحسوق هذا من الصحابة جودة إلهي الشيء القرآن كيني هاي قسوة القلب إلهي حلوه ثم قسوة قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وحال الشيء غير بني إسرائيل قسوة القلب حول وبدن هاي لها هي المكة قسوة القلب سيدة حمولة كلا كل عاد شركة أنت أوجد صار ما في سكالة بيرسية قفك كل عاد أي أو كلا أي ليه علاج صوت روح لين أسباب كانت صوت روح لين سبب تنسي أعراض وقت إن شاء الله ما تحت أرضنا أعراض ما صوت على إن شاء الله تسكت حرجين من هذا الموت أسباب تكلم يصوت العلاج لما كان تستوصل بلاو أعراضه والأعراض وأفر إن شاء الله في طابع سيرة كمان إن شاء الله شهيدهم أعراض ساتم كولاد يعني برضو قسوة القلب هيصل وحوي والتكاسل حوينا عاجز أتقدر أنتو وحي طاعضي قدر أبتونا سميصو لكن عجز أو كانوا شوينا سميصو runtii waa waxyaabaha keenaya in qaswatu qalb ay ku hayso marka inaad ka taxadirto runtii takaasulku haddii uu galo cibaadada runtii khatarteedu leeyahay waayo wuxuu kaa joogsanayaa dariiqii aad ilaahay maraysay marka waxaa laga baahan inaad sida ugu degdeg badan aad ula tacaasho waxaa la sheegaa daacadda markuu galo takaasulku in qofkii uu ka hor joogsanayo inuu udegdego wixii khayr oo dhan waxana ragnay waxa lagu sheegay waa calaamad lagu sheegay in munaafiqiinta oo in ay cagaha jiidaan markii salaada tagayaan ila qaamu ila salaati qaamu kusala yuraahuna an-naasa wala yadhkuruna allaha illa qaliila sidoo kale waxyaabo badan oo waxay ka horjoogsanaysaa wanaag wada sameynaysa marka haddii aad isku aragto walaashii aad isku aragto inaad takaasul ku jiro عن طاعة سميسو وحلو قاتها إن هو صاحي قسوة القلب رنتي كاس مكان كابحنا قدر كلابات الشيغان علماء وحوي عدم التأثر بآيات القرآن والمواعظ
taasina waa qodob khatar weyn qofku waxaa looga baahan yahay horta mawcidada ugu qiimaha badan ee bini'aadamka ugu wacdiyi karo waxa weeye waa alqur'aan qowlullah kalaamullah marka haddii kalaamullah uu saameyn waayo waxaad garataa inuu wax mawcido kale oo ku saameynaysaa habeerateena jiro waa akbar mawcida qad yuucadu biha alinsaan marka runtii in aad ku ta'asir weydo qur-aanka weli inaad ku ta'asir weydo mawaacidda dadka culummada ah weliba sida mawaacidda ka hadashaa khashyatullah iyo qofka naarta iyo jannada waxyaaba badan mawaacidda ka hadasha aadaad ku ta'asir weydo waxay taasi calaamad u tahay in ay ku hayso qaswatul qalbi marka runtii waxaa la sheegaa nebiga calayhi salaam khudab ku soo jeedinayay markuu khudbadaha soo jeedinayo waxyaabaha ugu badan ee uu dadka ku khudbayn jiray maan ahayn kalaam caadiya markuu soo istaago mimbarka nebiga calayhi salaam calayhi afdal salaatu wa tasliim wuxuu samayn jiray markuu dhammeeyo muqadimad wuxuu bilaabi jiray inuu aayado akhriyo dabeedna asxaabtiigu ooyay ka dareeri jiray masjidka marka taas waxay kuu cadaynaysaa qalbigoogu marka koowaad qalbigoogu wuxuu ma ahayn qalbi qaswatul qalb hayso qalbi nadiif u ahaa marka wixii qowle uga yimaada runtii la ta'afuray marka runtii qalbigoodii ka ilaashay in qaswatul qalb ku dhacdo marka taaba ugu wacneyd in iyagu ooyay ka baxaan masjidka marka runtii haddii cadamu alkhashya ay kugu dhacdo ama inaad ta'asur ku sameeyo qur-aanka iyo mawaacidda adugaata halkii walaashayga daawanaysaa inay ku hayso qaswatul qalb qodobka saddexaad ay sheegaan baraka culimadeeduna sheegaan waxa weeye qofkii oo tacalluq saayida sameeya adduunka waxaan adduunku runtii waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waa masracatul aakhira waa meeshii aad baranaysay camalkii aad aakhiro ilaahay oo kaaga maxayda abaalinaya laakiin waxaa looga baahan yahay inayna noqon meesha aad leedahay maqsadkaaga laakiin ay noqoto bis wasiilo waxaa la yidhahdaa wasiilo iyo maqsad baa jirta maqsadku waxa weeyaan waa meeshii aad rabto inaad gaadho wasiiladuna waxa weeyaan waa wixii kaa caawinaya inaad gaadho maqsad marka runtii inaad u aragto adduunku inuu yahay wasiilo ku gaarsiinaysa maqsadka ugu weyn oo ah alaakhira marka runtii haddii aad aragto qalbigaaga tacalluq weyn ku sameynaya zaa'id saydan can nuzuul wixii loo baahan yahay intii loo baahnaa in kale inuu inka badan qalbigaagu inuu ku xidhan yahay adduunka waxaad ogaataa walaalkii noolaashii in ay ku hayso qaswatul qalb marka waxaa lagaa baahan yahay inaad fiidiyooda meesha la daawato aad ogaataa asbaabta kuu keeni karta meesha la cilaajka duulaayo marka tacalluqu zaa'idkii adduunka uu ka mid yahay qaswatul qalb qodobka u dambeeya barakallahu fiikum ay kaga bixi doono wax weeye ilaahay weynidiisu intii dhammaan kownkan oo dhan baa garanaya waa inuu ilaahay cadiim yahay inuu ilaahay kowlogan yahay dhammaan waxaana taa kuu caddaynaysaa mar kastoo salaada tukanayso waxaan oranaa markaan ragcad kasta aan bilaabayno iyo waxaa noogu badan allahu akbar waxaad ogaataa allahu akbar maaha ilaahay baa weyn waxa weeye ilaahay baa ka weyn wax kasta haddaan iminka ka soo baxday shaqo oo qaylo badan waxaad soo jirtay iyo inaad maranto waxaad ogaataa qayladaas iyo adduunka oo dhanba inuu ilaahay ka weyn markaad allahu akbar tiraado waxaa loo baahay in qalbigaa gasho in ilaahay weyn inuu ilaahay cadiim marka haddaad ogaato inuu weynida ilaahay ay daciif ku tahay qalbigaaga oodan u arag inuu kali waa wax ka mid tahay asbaabaha shirkiga keena ama lagu gaadho shirkiga sabayra ugu horeeya shirkiga laakiin waxaad ogaataa tacdiimullah hadduu qalbigaa daciif ku yahay walaashay iyo walaalka waxaad ogaataa in qaswatul qalbi ay ku hayso waxaa laga yaabaa insha allah inaad ilaahay aad weynadiisa iyo cadamadiisa ay qalbigaa ku yimaado markasta aad salaatuleyl tukato ilaahay u dhawaato hadan isku daydo inaad iimaankaaga kordhiso alimaanu yaziid wayanqus buu nebiga cala salaam wuxuu ku ziyaadaa waxa weeyaan daacad qofku inuu sameeyo wuxuuna ku nuqsaamaa inuu qofku sameeyo waxyaabo ilaahay oo ka xarim runtii waxaa laga baahan yahay walaalkii dhammaan muslimiintiina daawanay oo dhanba insha allah waxaan soo gudbinaynaa runtii in ay tacdiimu allah inuu qalbigaaga ku noqdo mid weyn marka haddaad aragto inuu tacdiimu allah ama weynida ilaahay ay daciif ku tahay qalbigaaga waxaad ogaataa in ay kugu soo jiraan xanuunka ama daagaas aan maxay runtii
daayada ka jira adduunka oo dhanba waxay leeyihiin dawooyin la isticmaalo laakiin dawada kaaga dhacda qalbiga waxa weeye inaad ilaahay u soo noqoto qalbigaaga ka nadiifiso wixii xumaanay ku jirta marka afartaas bay ugu waaweyn tahay ka sheegaan waxay u jiraan acraad badan oo u bartay laakiin afarta ugu waaweyn inaguna insha allah isku dayna inaan isu gudbino intaas weeyaan runtii aad baad mahadsantihiin insha allah waxaan jecelahay inaan ku dhaqanno afartaas shay biidni illaahi tacaala oo waxaan soo qaadan doonaa sheekayaan kusoo gabagabayn doona sheekada waxaa ka hadlaa baraka allah fiik sheekh khalmiis sheekh yaxye ilaahay barakeeyo waxafidahullah iyo dhammaan culimmada muslimiinta oo dhanba wuxuu yidhaahdaa waxaa jirtay sheekayaan waxa weyn iska maxayda khayaal laakiin ay wanaagsan tahay inaan fawaa'ideeda insha allah qaado wuxuu yidhi waxaa jirtay jiirar badan marka macshar jiirar baa jiray meel dhabo macshar dhan weeyaan oo way shaqan marka maalin bay waxay sameeyeen shir weyne bay sameeyeen shir weyne jiirarkii ugu horreeyey waa markaas waxay ka shirayeen bisad ayaa dhintay marka waxay dhaheen bisadaas dhawaan iskaga qabanaa waana wax maxaa iyaga faa'iido ah oo community-ga jiirka ah intii u ah maxaa wax muhiim inay ay khutuurada iyo khatarta bisadu leedahay iska yareeyaan marka waxay isku raaceen markii wala shireen waxay isku raaceen in bisadaas intay soo qaadaan jiris ay kaga xidhaan qoorta jiriskaas markuu dhowdhowo idhaahdo waxay arkayaan inay bisadu soo socoto marka way ka taxadirayaan waxay galayaan maxay meeshii loogu talagalay guryahooda markaasaa bay isku raaceen marka jiir ka mida jiirashii baa farti taagay marka wuxuu yidhi waa sax horta wax isku raacnay inaan kaga xidhno maxay jiris bisada qoorta kaga xidhno laakiin waxaa loo baahan yahay yaa jiir dhalay ahoo intuu kaco soo qaadayo jiris oo ku xidhay weyne marka samada wuxuu xoqday wuxuu yidhi cidna way ku dhici weyday marka wuxuu yidhi halkaabuu shirkeenu yahaan halkaabuu ku maxay butlaan wuu ku khasaaray oo dee ma sii socon oo wuxuu noqday mid faylida shirkeena halkaabuu ku feelgay marka runtii haddii aanan wax kastaan isku oragno kelmad kastaan isku oragno laakiin tadbiiqii iyo qofkii inuu aqbalay galay wixii ku adkaato waxay noqonayaan jiirasha intay u shiraan inay bisad ku xidhaan dhigna shirkoodii faylna marka insha allah waxaan isku taxarujin doonaa intaan karno ilaahay wuxuu fataqullaa ma istadactu insha allah intaan karno inaan ku dhaqanno waxyaabaha una ogaano inayna hayaan afartaa acraada sheegno insha allah aad baa mahadsantihiin sala allahu calaa sayidina maxamed